السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودا meel walba aad naga daawanayso ku soo dhawaaw xabtii dahabka iyo waayii saxardiid qaybteedii 12aad. qaybta 11aad waxay inoo joogtay saxardiid baa markaa inta kacay isiri qaybta 12aad waxay ku bilaabmaysaa shimbir bakol ay tahay wax siniina meelaha ugu soo dil duurkii ayuu kadib kolba dhan u gudbay cabaar haddii uu socdo ayuu arkay qiiq ka baxaya meel fog markaasoo xaggii qiiqa aaday oo orday waaba nin qalwo yar oo dhagaxaan ah samaystay oo hilib yarna dabka ku duwanaya saxardiid baa u soo qayliyay ninkiise maba soo dayaya xaggiisa markuu u dhawaaday ayuu ninkii soo jeestay saxardiid baa fajacawgii hadal ka soo bixi waayay ninkiise intuu ku soo booday ayuu isku duubay ayuu farxad la qayliyay kuye saxardiid war sidee halkan ku timid saxardiidna wuxuu dhahay adeer ayaan leh adna ma halkaanaad joogtaa ayaan leh ayaa madaxa lulay sidii qof aan waxba maqlayn saxardiid baa hadalkii ku celceliyay adeer maxaa ku hel bal ii waran mar labaad buu haddana ninkii madaxa lulay markoo in yar aamusnaa baanuu yidhi adeer wallay iga tahay afka aad dhaqaajinayso baan arkaa wax alle waxaad ku hadlayso ma maqlaayo soo habeen baaskii aan badda isa soo raaciyey mawjadii isiday dhan walba iga dharbaaxaysay iguma soo tuurin xeebta anoo dhagala'aan dam ah saxardiid baa isna ku yidhi adeer waa amar alle iminkana ilaahay dhib la'aan ha kuugu soo celiyo maqalkaagii ayaan lase intoo madaxa lulay ayuu yidhi maxaa tiri adeer isla markaas ayuu saxardiid wuxuu maqlay cod meel fog ka soo baxaya dabadeedna intuu farta labada dabnood saaray si oo ayaan loo aamusiyo dhagaha u taagay xaggii codka ka soo yeerayay wuxuuna maqlay hees calaacal iyo tiiraanyo leh markaasuu xaggii codka ka soo baxaya u jeestay waaba nin dheer oo xubno toostoosan oo dhulkana kolba lugta aayar dhigaya sidii qof indhala kuna heesaya luuq macaan hase yeeshee murugo ku laran tahay saxardiid baa inta luuqdii meel baan qalbigiisa ka taabatay istaagay oo dhageystay keli ahaantii iyo go'doonkan ka dhawaajinaya ayaa xasuusiyay markii oo cidlo iyo ciirsa la'aanta ahaa markaasuu ilmeeyay oo dhidid qabo labada dhinac dareeray markuu ninkii heestii dhameeyay ayuu kadib xaggiisii u cararay hadduu is hortaagay oo wejigiisii gartayna farxad ayuu la qayliyay wuxuuna yidhi alla waa adeer soo geli ninkii indhaha la'ah ayaa istaagay isaga oo fajacsan wuxuuna yidhi waa kuma yaa ii yeeray saxardiid baa kula degdegay miyaanad i garanayn adeer ninkii baa yaab wejiga la aruuriyay oo yidhi allah ilaahe dhawaaqaas waa midaan garanayo markaasuu intoo tallaabo hor soo qaaday oo gacanta iska hormariyay wejiga ka taabtay saxardiid yirina qofkaani wejigii saxardiid buu leeyahay oo haddaa tahayna sidee baad u timid dhulkan fog saxardiid baa intoo la yaabay gacan fidfidintii iyo hadalkiisii ku yidhi ha adeer saxardiid baan ahay maxaase kugu dhacay miyaadan i arkayn soo geli intoo madaxa lulay isaga oo niyadjab iyo uur xumaan ka muuqata ku yidhi alla adeer haddii aan wax arkaayo miyaan kuba garan waayi la'aa habeenkii ayaan darada siday ee aan mawjadda isku soo madluufiyey ayaa dharbaaxadii biyihii labada indhood iga markaan badda ka soo baxayna xeebtan cidlada ah ayaan u soo baxay aniga oo dam ah saxardiid baa isagana u beerdiiliyay oo ku yidhi ilaahay wax roona kaaga abaalmariya dhibka ku gaaray waxaana ka baryayaa inuu dhaqso kuugu soo celiyo araggaagii ninkii baa yidhi adeer waxaad iiga warantaa sidaad walaalahay iyo hooyaday kaga timid saxardiid baa intoo qosla yidhi walaalaha halkan aan joogno ayay inala joogaan soo gali ayaa hadalkii wuxuu ku noqday afkalaqaad wuxuuna yidhi ma halkan war maxaad leedahay saxardiid baa ugu jawaabay haa kala raaggii iyo kala maqnaanshihii kadib waanu kulannay halkii buunu soo hagay iyaga oo midba kan kale ugu sheekaynaya waxa uu la kulmay intay kala maqnaayeen intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 12aad ee sheekadii saxardiid